kulankan looga hadlaya daryeelka naafada ku nool magaalada Cadaado ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka daryeelka naafada gobolada dhexe iyadoo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug maamulka degmada Cadaado iyo qaar kamid ah dadka lixaadkoodu dhiman yahay ee ku nool magaalada Cadaado xubno kamid ah naafada oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in xilligan duruufo kala duwan ay la nool yihiin aysan jirin cid ka warqabta xaawo abtidoon kadiya oo kamid ah bulshada rayidka iyo Axmed Cabdi Axmed oo xubinka ururkan kulanka soo qaban qaabiyay ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay ku baraarugsanaadaan xaaladda naafada qofka lixdiisa lixaad qaba iyo qofka aan lixda lixaad qabin inta u dhaxaysa waad garanaysaan ganacsatada dhalinyarada ilmowdiinka galabta warka la sheegaya laga harin beledka loo galo meel barwaaqa ayaanu joognaa meel xoolalahan joognaa meel lacagtaala joognaa waxaa loo baahan in la isku taxallujiyo oo dadka dhibaatada lala wadaago ayagana ilaahay ha u kaalmeeyo dhibaatada haysana ilaahay ha ugu sabreen salaamu calaykum midna aan rabo naafada naftigeeda inaan ku baraarujiyo waxay tahay qofka naafada ah ma qabsan karaan ma qabsan karo naafadeen waxaa ka dhaadhacsan inay gacmaha taagtaan oo keliya inay bini aadan sugaan laakiin bini aadan gacantiisa laguma baahi baxo waxa lagu baahi baxo waa gacantaada haddana waxaan usoo qaato malkudhig waxaan usoo qaadanay boorkan lugo ma lihi gacmo ma lihi laakiin rajo la-aan ma ihi halkudhigaan waxaa qoran in Swedish ah ninkaas gacmona ma laha lugana ma laha maskaxdiisa ayaa u fiyow qofka haddii maskaxda u fiyowdahayna wax walba uu qabsan karaa waxa uu sameeyey ninkan waxbarasho bilaabay waxbarashada uu dhammaystay kadib heer wuxuu gaaray inuu manager ka noqdo shirkad waa manager waa ka xumahay internet ma haysano fiidiyadiisana idin tusi lahay marka waxaa jirto hadda tusaale yar oo horteena idin soo qaadanaya cali waa nin naafa ah wuu shaqaystaa oo nin wariye ee saxaafadooda dadka kale naafadana waxay baran karaan wasiirka gargaarka bini'aadanimada iyo daryeelka naafada dowlad goboleedka Galmudug Shire Xirsi oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay siyaasad iyo xeerar lagu dhowrayo xuquuqda naafada ku hawlan tahay dowladda hesheen dowladuna hadii ilaahay inuu dadka naafada wasaarad gaar ah u sameeyay wasaaradda qorshooyin badan baa jira oo dadka naafada wax loogu qabanayo hadii ilaahay inuu iyaga iyo ilmahoodaba hadda waxaan bilownay ayaan hore maraan gaalkacyo tagnay aniga iyo madaxweynuhuba waxaan la shirnay dadka naafada iyo barakacayaasha wixii baahiya oo ay qabeen dhammaan waa aragnay baahida ugu badan oo ay qabaan midda guud oo la og yahay waxa uu dheer ilmuhoodu tacliin ma haystaan iyaga dad dhalinyaro ah jira oo aan tacliin haysan marka wasaaradda waxbarashadan la sheer garaynay ugu dambeyn 20 kamid ah naafada kulanka ka soo qayb galay ayaa loo qaybiyay deeq lacageed oo xubnaha ururku iska soo aruuriyeen maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka Cadaado.